maxaa ku joojinaya adiga ma daalan tahay ma hurdo kugu filan ayaanad seexan habeenkii ma xidhiidh baa kugu xumaaday ma cid ku taageerta ayaad weyday ma halka aad ku nooshahay ayaad nacday ma enerji baanad lahayn ma lacag badan ayaanad haysan mise waxa ku joojinaya ee ku haystaa waa isla adiga uun marmarsiyuhu waa dibudhac waa waxa qofka dibudhiga waa dilaa jooji cudurdaarka aad u samaynaysa naftaada jooji cabashada iyo calaacalka jooji inaad dadka uga sheekayso murugadaada iyo sheekooyinka niyadjabka ah si aad dadka ugu beerlaxawsato been iyo khiyaalina isugu qanxisaan dadka aad arkayso ee horumarka sameeyey ee heerka sare nolosha ka gaadhay ha ka masayrin ha u qaadin in nasiib iyo dhaxal ay u heleen dhammaantood in badan meel hoose ayay ka bilaabeen wakhtiga 24 saaca ee aad si isku mid ah u wada haysat ayay ka faa'iidaysteen waa xilligii aad isbeddel samayn lahayd waa goortii aad go'aansan lahayd inaad samayso wixii naftaadu rabtay wakhtigu waa hadda jooji dibudhigashada iyo wahsiga ma jiro wakhti sax ah oo kuu imaanaya adiga waxaa la joogaa wakhtigii aad ka faa'iidaysan lahayd kartida iyo khayraadka aad haysato oo ah naftaada lixaadkaaga iyo maskaxdaada ma dhibaato ayaa kaa haysata nolosha ma dhibaato ayaa kaa haysata dadka qaarkii iyo deegaankaagaba wax ka qabo u kac sidii aad isbeddel ugu samayn lahayd mar kastama inta aad go'aan gaadho ayaad fulin weydaa ma wixii aad niyeysato ayaanad ku dhaqaaqin macaajis iyo wahsi ayaa deris kula noqday waxaas oo dhan waa marmarsiyuhuna waa waxaan jirin waa wax la sameeyey waa been sidee ayaad isaga joojinaysaa beenta waxaad beentaa ku joojinaysaa haddii aad rabto in aad guul gaadho oo horumar samayso ku dhaqan hal sharci naftaada been ha u sheegin ha ka cararin runta ha ku noolaanin been cabasho cudurdaar aan jirin ku noolow runtu waa waxaad haysataa wakhti waxaad leedahay karti waxaad haysataa xirfado waxaad haysataa aqoontii iyo taageeradii la imow dadaal iyo doonid kuna tarbiyadee naftaada wixii aad rabto inaad gaadho ama inaad noqoto naftu waxay rabtaa in la hoggaamiyo ku tababar naftaada inay wax soo saar yeelato inay qabato wixii aad doonayso oo dani ay kugu jirta adiga midhaha guusha iyo wax kasta oo nolosha wanaagsan ahi waxay ku bilowdaan caqabado ha ka baqan dhibaatada ku soo wajahaysa waa imtixaan kuwaasina ku dadaal sidii aad adigu uga gudbi lahayd sidaad marxalad kale oo cusub ula kulanto had iyo jeer dhibaatadu waa u joogto qof kasta la tacaal ka gudbidda wajah oo ha ka cararin marnaba tani waa noloshaadii tani waa fursadaadii tani waa wakhtigaagii aad isbeddel iyo horumar samayn lahayd berri ayaad leedahay maalin kasta berri baad samayn doontaa berri ayaad sidaa yeeli doontaa waxaasoo dhani waa cudurdaar ha isugu sheekaynin berri ma hubtid inaad gaadhi doontid maanta ayaad haysataa jooji dibudhigashada jooji wahsiga jooji caajiska iyo marmarsiiyaha aad naftaada ku maaweelinayso maanta waxaa la joogaa maalintii ugu dambaysay ee aad dili lahayd xanuunkan aad muddada badan la noolayd kaasoo ah wahsiga iyo caajiska ay naftaada ku noolayd maanta wixii ka dambeeya fadlan daawada dhegayste waxa aad noloshiinna ka saartaan wahsiga caajiska iyo keliya inaad meel iska fadhidaan adiga daawanaya muuqaalka waxaan kuu rajaynayaa guul waxaan kuu rajaynayaa gobonnimo waxaan kuu rajaynayaa wax kasta oo aad qalbigaaga ku haysay oo wanaagsan inuu rabbi kuu rumeeyo walaalayaal aynu dadaallo dhallinyaro ayaynu nahay maalin dhow waxaa dhici doonta inaynan dhallinyaronimada ahaan doonin oo aynu waayeel noqonayno oo wax kasta ay isbeddeli doonaan balse intaa ka hor ee aynu dhallinyarada nahay waxaa loo baahan yahay inaynu dadaallo aynu dadaal la imaadno waa intaa muuqaalkeen waxaan rajaynaya wax badan idinka caawin doonto tan iyo muuqaalkeenna xiga waxaan idinku dhaafay nabadgelyo fii amaanillah